بسم الله الرحمن الرحيم سو دواده وأيو هيريتيج فونديشن مرتي قاده اسمام القبلات كسوماليلاند وثينك تانك مؤسسة فكرية وهيئة فكرات مسكح مال هذا بمحي قبان كرتا سوماليلاند وحبا ما قبان كرتو لكن وكوح خبراء oo talooyinka iyo fikrada ka bixiya dhibaatooyinka siyaasadeed ama dhaqaaleed that is it and period a body of experts providing advice and ideas on specific political economic problems that is it haddaba waa aya Kevin Roberts ee madaxa hay'adda Heritage Foundation waa nin reer Texas Austin halkaas ayuu chief executive officer ka ahaa hay'adda non-profit oo loo yaqaano Public Policy Foundation haddaba sanadkii dhawaayay 2020 ayuu October tii dhaweyd ayuu madax ka noqday Heritage Foundation waanan muxaafid oo xaq jir haddaba Kevin Roberts iyo Heritage Foundation maxay u qaban karaan Somaliland waxba uma qaban karaan laakiin ayaa wax u qaban kara Somaliland su'aashu waa ta waxa wax u qaban kara Somaliland dawladda Mareykanka bas period hadaba maxay ka soo dooneen Heritage Foundation hadayna awood u lahayn inay wax u qabtaanba waa arinta aan ka hadli doono caawa ku soo dhawaada LBC channel oo idinka imanaya gobolka Minnesota hadaba aan soo noqono maxay ka soo dooneen Somaliland iyo Heritage Foundation oo charitable foundation oo ku taala dalweynaha Mareykanka ee Washington DC oo hay'ad waxa weeyaan samafal qaadata oonan ahayn hay'ad qani waayab aan faalayna arinkaas tusaale yar ayaan idin siinayaa waa adigoo yimiday kayn libaax ka taliyo oo uu ra'iisul wasaaruhuna ka yahay Shabeel oo uu hariimacad ku jaga hoose uu ka hayo oo aad taageero iyo aqoonsi aad weydiisatid hariimacadka waa impossible mission waa arin yaab leh hadaba Somaliland libaax iyo Shabeel waxba may weydiisan ee hariimacad ayay wax weydiisatay libaax waxa ka Joe Biden wadanka Mareykanka isaguna warba uma hayo Somaliland ee Ukraine iyo Ruushka ayuu ku mashquulsan yahay soo dhawaada mar labaad waad ogtihiin Somaliland waa la soo dabayaacay xagana la yimiday dad badan baa soo raacay haddaba dadku saddex baa kala baxaan qof wax garanayo waxan bal la socda iyo qof aanan garanayn waxan socdaba oo de wax walba iska aaminayo wafti baa yimiday Somaliland oo Mareykanka yimaadeen oo hadii yimaadeen Allah aqoonsi baa la helayaa war waxaasi waa nonsense wax jira ma jiraan runba maanta la sheegaya dadkan ay u yimaadeen Somaliland waxa la yiraahdaa Heritage Foundation waa mu'assasa fikriya waa qof meel fadhiistay oo markaasi maskaxdiisa maalaya oo dadka la talinaya oo dimuqraadiyadda iyo waxaasi kala talinaya waxa weeyaan hay'ad muxaafadana oo waxay aad u jecel yihiin founding fathers kuwa la yiraahdo ee Mareykanka u dhigay valueska iyo normska iyo waxan ay ku joogeen principle ee aqeedada dadkii u dhigay uu ka mid yahay Washington iyo Abraham Lincoln ay ka mid yihiin dadkaasi ay hayaan markaasi principle-kooda oo xafidaan oo waa dad muxaafida oo conservative waxa loo yaqaan mana aha hay'ad qaniya oo lacag leeyahay oo sida Boeing iyo Microsoft iyo Amazon iyo kuwaas waa baac mushtari waxbay ku jiraan laakiin ma aha hay'ad qaniya oo wax soo saarto product soo saarto waa service sida la socdo waxana ay ku salaysan tahay saddex shay waxay la taliyaan dadka soo korayeen wali dimuqraadiyadda iyo waxaasi ana waxba ka aqoon bay la taliyaan waxay kala advice siiyaan dawladda Mareykanka lafteeda ayay wixii ay khalad arkaan ee conservative-ka ka dhana ayay yiraahdaan hal la xafido oo daayaha bedelina wax oo iska easy oo dadkuba ay fahmayaan bay horta inta badan ka shaqeeyaan oo wadankan more than 200 sano buu jiray principle iyo norms buu ku taagan yahay iyo doctrine tii baana lagu shaqeeyaa iyo kuna taa bay si xafidaan oo waa dad Mareykan oo conservative Taiwan bay marmar iska casuumaan waxa casuumaan cid walba oo
dee markaasi dimuqraadiyad baranayso oo soo kabcayso oo inay nation iyo waxaa noqdaan ee iyagu libaaxba kama ah Maraykanka waxa libaax ka waxa libaax ka Maraykanka madaxweynaha Maraykanka ee Joe Biden waxa ku sii xigay Congress-kiisa iyaguna shabeeladii ka oo waxda iyaguna dhamayn kara iyagu markaa waxay ka yihiin darajada harimo cad oo kale oo ay ka Itaaliya yihiin baan ka wada waxaan imika xawayaan waan example ma samaysanaya laakiin se quwadoodu waxa halkaas oo kale ay taagan tahay waa inay markaas u yar sharaxaan uun adduunka Somaliland waxa ay tahay iyo dimuqraadiyadan ay wadwadaan ee beenta ah in loo dhaneeyay inta yar dhexda ah ee beenta laga sheeganayo waa Muuse Biixi oo dhagar qaba ay wataan oo wax laayay iyo dad baabi'iyay waxa uun baa la yayabayaayo lacagna way qaataan oo waxay u badan tahay in Heritage Foundation ay Somaliland lacag ka qaadatay waayo bogooga markaa tagtid website-kooga waxa ku qoran donation baaba ku qoran waa charitable oo organization wax lacagtay qaataano dadka private-ka ee individualiska ayaa markaasi wax ku deeqa siday markaasi Maraykanka aqeedadiisa weyn ee uu ku taagan yahay ee founding fathers u dhiseen say u ilaaliyaan oo dadka dhan ee meesha ka shaqeynaya waa wada conservative dad maaha oo maaha dhaxdhaxaada waa dad xag jira oo Maraykanka aqeedadiisa suga waana saxo waxay ka shaqeynayaan waa sax laakiin Somaliland waxba uma qaban karaan ee waxay wax u qaban karaan wadankooga Mike Pompeo maalin dhow buu ka hadlay doonaa maalinba dignitarigaas iska casuumaan kolba dad baa la iska casuumaa oo meesha lacag baaba la siiyaayo iyo kaab liftooda dad baa ku haya oo markaasi donation sameeya marka dadkan buuqa lagu furayo aanan waxba waruhayn ee leeyahay Somaliland ba aqoons loo doono Maraykankiiba aan aqoonsanay iyo war waxaas waa nonsense wax ka jira waa khuraafiya waa asaadir waa myth that is absolutely was science fiction almost science fiction 100% waxa jira ma jiraan wayna ogyiin Heritage Foundation inay Somaliland tahay dawlad yar oo qabiil ku dhisan oo inta maanta la socotayba waxa u badnaa beesha dhexe everything way yaqaanaan laakiin iyaga maxaa u daran organization koogan waxa contribute garanaya lacag keenaya bay iska xayeysiinayaan oo waxa weeyaan rabbina loo fataha calayka hadii ilaahay lacag badan ku siiyo arrimo ad nation ad marsato doonayso dawladdu tagaysay waxaad leedahay niyo lacagtaasan haya halay kala tuuro service baa ku baxaya computer yaala meesha waa building dan kira ku socota kooraan baa ku socda biyaha ku socda mishaar bay dad siiyaan waxa weeyaan lacag ku socda waxa weeyaan waa non profit organization iyaga laftooga baaba ayaa laga dhaafaa cashuurta oo lacagta way ka dhaafaan cashuurtu wadanka Maraykanka iyaga waa laga dhaafaa waxana looga dhaafaa income kale ayaana jirin oo dadkaas ay markaasi waxay ka helaan marka gunaanad iyo ugu dambeystii Somaliland waxa u yimaadeen ninka kaynta ka taliye ugu xoog weyn Maraykan waa wadan horumaro kayn maahina waa dad khatar weeyaan laakiin saw example baan niga dhigaya meesha meel la taabto ka sareysa ma jirto Soomaaliya Soomaalidu madax mi taaban waxay taabteen darajo ana waxba u qabanayn ay markaasi wax ka dooneen oo iyagu markaasi number of charitable markaasi organization marka waxay kala noqon doonaan Somaliland Maraykanka only inay yimaadeen oo Maraykan ay iska dhex socdeen second in ay u yimaadeen Heritage Foundation oo ay wax yar ka qorqoratay lacagtiina dabcan lacag baa laga qaadaya oo meesha computerku bilaash ma lacagtiina laga qaaday waxoogaana loo qorqoray marka Heritage Foundation iyagu nimankan haysta ee meesha kamid ah qaar baa waxay ku takhasuseen Middle East iyo Africa oo rag khabiir ah meesha jooga laakiinse awood uma leh in ay Congress-ka iyo executive-ka oo madaxweynaha Maraykanka waxyaabaha inay gali karaan oo wax u sheegi karaan iyaga dhanba aabal loo yahayba iyaga dhan waxay ku tasbiixsadaan founding fathers bay ku tasbiixsadaan oo kuwaas u waaweyn wuxuu ka mid yahay Joe Biden waa madaxweynayaasha ay ka helayaan jecel yihiin kuwaan buraadkooga haysta
markaasi maraykan dowladda maraykanku may casuumin congress may casuumin prime minister may casuumin nobody or related ku a dowladda may casuumin number of organization oo meel iska degan oo Washington DC iska degan halkaasay kolba ka hadlaan arrimahooga markaasi ku saabsan qof ay dimuqraadiyadda wax uga sheegi karaan mid labaad dadkan waxay weyneeyaanba Heritage Foundation waxay weyneeyaan dadka ee ma weyneeyaan madaxweynaha waxay ka jecel yihiin dadka in awoodoodu oo Mareykan jacaylkiisa waxa inay ku beeraan kadibna awoodda ay dadku sameeyeen madaxweynaha ay gaadho marka maxay u sheegayaanba dadkii Soomaaliland baaba kala qaybsanba dhinacan galbeedku waxay tirsanayaan in la laayo xasuuq lagu sameeyo holocaust lagu sameeyay dhinacan kale iyaguna bariguna holocaust kale oo ay tirsanayaan oo biri dhow kaara meesha saaran waad aragteen buu hoodle waxa weeyaan iyaguna waxbay tabanayaan dhaqaale iyo siyaasad iyo wax walba dhinacan galbeedka ee Boorami iyo Saylac iyo dhulkan oo dhan ilaa Diliya dhulkaasina waxay tabanayaan iyaguna arin adagoo naftoodii baa la dilay oo dib ay soo gaadhayba marka Somaliland all in all waxay kaga tagaysaa Mareykanka iyo koo faramaran period only iyagoo waraaqeer laga qorqoray oo la oran doono dadkaasi mirbay yimaadeen oo Heritage Foundation oo hadii lacalla wacasa hadii uu Mareykanku waqti dambe oo ay ka soo faramadeen Soomaaliya ay diisay tiraado iska go'a oo Ethiopia ku raacdo oo Djibouti ku raacdo aadu late dambe ay Mareykanku oranayaan inuu Heritage Foundation maxaa dadkan ka taqaaniin bal waxoogaa nooga yar sheega markaana Mareykanku siday doonaan ba ka yeelayaan siday doonaan ayay ka yeelayaan waxa weeyaan wax been aanu ma sheegayo Heritage Foundation oo lacag bay qaataan samafal bay qaataan intaasaan kaga baxayaa dadka isla markaasi Somaliland wax weyn bay u yimaadeen wax weyn bay qaateen waa non exist wax jira maaha mar labaad waan salaamay LBC habeen waxaan wanaagsan